911, what's your emergency? I've just been shot. Where? Who? I've just been shot. Where are you at? My grandma shopping. I'm gonna die. Help. haweenaydan waa Sandra Lian oo ah macallimad howlgaba taas oo wax walwala aan ka muuqan ayaa soo gashay howlka maxkamadda iyadoo xiran jaakada maxaabiista gacmahana ka katiinadaysan xubnaha qoyskeeda ayaa fadhiya maxkamadda oo ku jira ninkeeda Fred oo 87 jira maxkamadda ayaa shaashada soo saartay wiilkan dhalinyarada ah oo dhool cadeynayo waana wiilka ay ayeedo u tahay Sandra Lian haweenaydan 75 jirta ayaa lagu soo oogay loona haystaa dilka wiil ay ayeeyo u tahay oo 17 jira kaasoo toogasho ay ku dishay bilo ka hor laakiin intaan bilaabin muuqaalkeena maanta haday tahay markii kugu horeysay soo booqato channelka fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal baan soo gelin oo uusan kugu dhaafin like iyo share-tan inuu dhiirigeli mahadsanid Jonathan Hoffman wuxuu ku dhashay kuna barbaaray galbeedka Bloomfield ee gobolka Michigan wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah dugsiga sarena ka baran jiray iskuulka Highmore Jonathan wuxuu aad ugu fiicnaa hagaajinta kombiyuutarada sidoo kale Jonathan imtixaanka dugsiga sare uu keenay darajo aad u sareysa awgeed wuxuu deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Eastern ee gobolka Michigan waqtigaas wuxuu rajaynayay inuu qalinjibiyo June 2012 Jonathan hooyadiisa aabihiis waxay isfureen 6 sano ka hor laakiin labadan waalid meel aan kala fogeyn ay ku noolaayeen isla waqtigaas waxaa xanuun ku soo booday Jonathan walaashiis oo laga helay buro madaxa uga taala una baahan ilaa 3 qalin waajibna ay ku noqoto inay ku hayaan isbitaalka maalin kasta si ay baxnaan u hesho Jonathan wuxuu aad ugu xiisay waxbarashadiisii iyo asxaabtiisii iyo gurigoodii taasoo aan suuragal ahayn waayo waxay isbitaalka kula jireen walaashood oo cid uu la jooga ma aysan jirin sida awgeed Jonathan ayeeyadii Sandra Lian ayaa u soo wadatay gurigeeda si uu ula noolaado waxbarashadana uu sii wado Sandra Lian ayaa ahayd macallimad wax ka dhigtay iskuul ku yaala California ka hor intaaysan u soo guurin magaalada West Bloomfield 30 sano ka hor Jonathan wuxuu la noolaa ayeeyadiis Sandra Lian iyo ninkeeda Fred Jonathan aabihiis ma uusan rabin ayeeyadiis uu la joogo balse wiilkiisa ayaa ku yiri aabo ha iga walwelin aniga waxaa la noolaanaa ayeeyadii Sandra 2011 Jonathan ayaa si rasmi ah ugu soo guuray ayeeyadii Sandra iyo ninkeeda Fred kuwaasoo deganaa guryaha iskaashatada ee West Bloomfield bil kadib hooyadiis waxay soo qaadan jirtay fasax 10 maalin ah si ay u daryeesho wiilkeeda Jonathan balse waxba kamaysan ogeyn in wiilkeeda uu isticmaalo maandooriye halis ah laakiin maalin maalmaha kamida Jonathan ayaa booliiska u wacay isagoo u sheegaya inuu dhimanayo taasoo booliiska ku qasabtay inay isbitaalka ula cararaan hooyadiis ayaa isla markiiba u soo duushay halkii uu joogay Jonathan waana markii ugu horeysay ee Jonathan waalidkiisa ay ogaadaan inuu isticmaalo daroogo hooyada dhashay Jonathan ayaa isku dayday inay baxnaaniso balse ayeedeeda ayaa ku tiri wiilkan aniga ayaa ogaanaya ee u laaba gabadha isbitaalka ku jirto ayna ka fikirto dhibaatada haysata gabadheeda yar Jonathan ayaa ka cudur daartay intani ay tahay arrin hal mar ah taasoo uu ballan qaaday inuusan dib dambe u samayn doonin laakiin maandooriyaha laga helay jirkiisa awgeed booliiska ayaa ku xukumay 93 maalin oo xarig subaxnimo May 18 hooyada dhashay Jonathan ayaa soo wacday hooyadeed Sandra wiilkeedana ayeeyada u ah waxay u sheegtay inuu fiican yahay suuqana ay uga doontay qudaar iyo wixii ay casho ka dhigan lahaayeen laakiin isla habeenkii Jonathan hooyadiis waxaa soo gaartay warkii ugu xumaa ee nolosheeda taasoo ahayd in hooyadeed Sandra Lian oo 75 jir ah ay toogasho ku dishay wiilkeeda oo 17 jir ah Jonathan kaasoo ugu dambeyn u geeriyooday sida ay booliiska sheegeen abaara 5 galabnimo ee maalinkaas kooxaha gurmadka degdega ah waxaa soo wacay qof degan xaafadda West Bloomfield kaasoo uu sheegay inuu maqlay dhawaaqa rasaasta booliiska markii ay soo gaareen guriga waxay arkeen naag timo guduudan oo dhex taagan guriga oo gashan dhar dhiig leh kaasoo ka soo baxay albaabka hore ee guriga gacmaheedana dhiig uu ka daadanayay kuna qaylinaysa eraya ay rumaysan kari waayeen booliiska kaasoo ahaa waxaan dilay wiilkayga oo aan ayeeyada u ahay naagta ayaa wadatay qoray ka mid ah qoryaha darandooriga u dhaca booliiska ayaana guriga hore u sii galay iyagoo arkay guriga oo dhan oo wada dhiig ah sidoo kale waxay heleen meydkii wiilkii yaraa ee 17 jirka ahaa oo barkad wada dhiiga ku dhex jira 9 xabadoodna lagu dhuftay mid ka mid ah saraakiisha booliiska ayaa arkay in wiilka lugtiisa dhaqdhaqaaq samaynayso booliiska ayaana ula cararay hospitaalka 6 galabnimo dhaqaatiirta ayaa awoodi waayay inay badbaadiyaan dhimashadiisa ayayna xaqiijiyaan 74 sano jir Sandra Lian ayay xabsiga u taxaabeen booliiska meydka Jonathan baaritaanka lagu sameeyay waxay sheegeen baarayaasha in 9 xabadood lagu dhuftay 4 xabadood oo qaybta dambe iyo 5 xabadood oo qaybta hore ah
May labadeedii ardaydii iskuulkiisa iyo maamulka iyo guud ahaan shaqaalihii iskuulka ayaa ka soo qayb galay duugtiisa si ay u garab taagnaadaan qoyskiisa xanuunka geeridiisana ula qaybsadaan. Bila kadib dilka, qof walba waxa uu malaawaalay waxa dhabta ah ee ku dhacay habeenkaas. Qofna ma rumaysna in ayeeyo dili karta wiil ay ayeeyo u tahay oo gabadheeda dhashay, gacanteedana ay ku soo korisay. Laakiin waxa kaliya ee booliiska ay ugu jawaabtay ayaa ahaa inay caraysnayd, laakiin waxay ku cadaadinayeen inay macluumaad dheeri ah helaan waxa dhabta ah ee ku kalifay dilkan, waxayna sheegtay. Yes, I did. All right, now you're in the loft. Yes. So you walk into the loft, did you have a conversation with him? Yes. What kind of conversation It did you have? wasn't a conversation. It was arguing. What is he saying to you? Swearing. He's yelling. Is he telling you he's taking the car? Yes. And I can't stop him. Sandra waxaa si rasmi ah maxkamad loo soo taagay 21 Maaj 2012. Waxay qiratay inay wax dambi ah galin kaliya ay isdifaacaysay. Sandra ayaa booliiska u sheegtay inay ka cabsan jirtay wiilkeeda, waayo daroogo ayuu zaid u isticmaali jiray mar kasta. Isaga iyo asxaabtiisa beerta u dhow guriga ay ku isticmaali jireen, taasoo mararka qaar sababi jirtay iyagoo cabsan inay guriga yimaadaan, anna aan ka baqi jiray inay dhibaato geystaan. mararka qaar waxaan arki jiray xitaa eegeena oo ay darooga siiyeen. Sandra Lian waxay maxkamadda ka hor sheegtay wiilkeeda uu marar badan guriga kala baxay alaabaha qaaliga sida dahabka iyo waxyaabo kale. Aniga xitaa waxaan ka cabsan jiray anigoo ayeediisa inuu dhibaato ii geysto, waayo qofka daroogaysan ma kala yaqaano waalid iyo qof kaleba. sidaa darteed waxay tiri waxaan soo iibsaday qori aan $700 kala soo baxay, kadibna maalmo badan ayay duurka ku baranaysay sida wax loo toogto, waayo waxay cabsi ka qabtay wiilkeeda iyo asxaabtiisa oo mar kasta guriga u soo raaci jiray iyagoo cabsan. sidoo kale xeer ilaalinta ayaa ninka Sandra su'aalo ka weydiisay wiilka ay xaaskiisa ayeeyada u tahay ee geeriyooday, kaasoo asigana maxkamadda ka hor qirtay in Jonathan uu darooga badan isticmaali jiray, xitaa marka uu waalidiintiisa la hadlaayo uu si naxariis daraa ula hadli jiray. Fred ayaa sheegay maalin maalmaha ka mid ah in guriga uu ka dhex qaaday xashiish uu lahaa Jonathan, laakiin markii uu wax ka weydiiyeyna uu ka carooday maalmana uu guriga ka maqnaa. inkastoo xaaskiisa iyo Jonathan ay marar badan isku dhaceen, saatee wax dhibaato maysan u geysan jirin. mararka qaar kombiyuutaradeyda ayuu burburin jiray, laakiin xaaskayga oo kaliya ayaan la wadaagi jiray. waa wiil yar ayay oran jirtay. sidaas waxaa yidhi Fred oo ahaa ninka qabo Sandra. laakiin booliiska ayaa caddayn ka lahay, taasoo ahayd in wiilka dhintay ee Jonathan uu soo wacay booliiska isagoo dhaawaca, kaasoo sheegay in ayeediis ay xabado ku dhufatay uuna ku dhow yahay inuu dhinto 2 daqiiqo iyo 47 ilbiriqsi kadibna. Jonathan ayaa booliiska ku yiri caawiya, mar kale ayay xabado igu dhufatay. codkiisa ayaana maxkamadda laga daaray. Are you there? codka Jonathan ee maxkamadda laga shiday ayaa ahaa borortii dhimashadiisa, waxaana la arkayay ayeeyadii dishay oo iyana lalmoonaysa. baarayaasha ayaa ku markhaati kacay Sandra iyagoo ka duulaya cadeymaha ay ka heleen goobtii dambiga. Jonathan ayaa dabaqa soo koray isagoo ka warhaynin in ayeeyadiis daba socotay, kaasoo galay musqusha. markii ay Sandra musqusha uga daba gashay ayay 2 xabadood ku dhufatay, kadibna musqusha ayuu ku dhacay wayna ka tagtay. isagoo xabadka ku siqaya ayuu qolkiisa galay, halkaasoo mobilkiisu yaalay. wuxuu wacayna marka gaaban ee booliiska 911. isagoo ooynaya ayuu booliiska ku yiri ayeeyday ayaa i toogatay, waan dhima rabaa i caawiya. wax ka yar 3 daqiiqo kadib Sandra ayaa qolka ku soo noqotay, waxayna riday risaastii ugu dambeysay ee dili lahayd wiilka ay ayeeyada u tahay. ugu dambayna nafta ayaa ka baxday. kadib dhageysiga dacwadda, xirbeegtida ayaa ka doodaysay muddo 2 maalmood ah. waxayna codsadeen in mar kale la dhageysto markhaatiga Sandra iyo duubista wicitaanka quusta ee wiilka yar. ugu dambayn Maaj 19 2013, 7 haween ah iyo 5 rag ah oo ay ka kooban tahay golaha xirbeegtida ayaa xukun ku riday Sandra oo ilmeynaysa iyo qoyskeeda oo dhoola cadaynaya ayay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aanka.
Sandro Leon waxaa lagu helay dambi dil darajada labaad ah taasoo dishay wiil ay ayeeyo u tahay oo 17 jir ah weliba si bareer ah waxaana lagu xukumay xabsi daa'in inkastoo gabadheeda iyo ninka ay sodohda u tahay ay ka codsatay inay cafiyaan oo xabsiga ay ka saaraan sababtoo ah xabsiga inaan ku dhinto mar raba ayay ku calaacashay iyadoo ilmeynaysa ugu dambeynna maxkamadda ayaa ku adkaysatay go'aankeeda xabsi daa'inka daawade adigana sidee u aragtaa kiiskan ayayda ma ka filan lahayd inay ku disho iyadoo awoodo inay ku waaniso ama dhaqan celin ku geyso fikirkaagana kula wadaag qaybta hoose waad ku mahadsantahay sidaad noola socotay